adigu xirfadee ayaad jeclaan lahayd inaad AI ku barato ama aad AI ku dhex isticmaasho? Tusaale ahaan, macallin yaqaana AI wuxuu si dhaqso leh u diyaarin karaa casharro. Ganacsade yaqaana AI wuxuu hagaajin karaa suuqgeyntiisa. Qoraa yaqaana AI wuxuu si dhaqso leh u diyaarin karaa fikrado iyo qoraallo. Ka baqanin AI oo kaliya, baro sida loo isticmaalo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Janalkayga Dalbaray Show oo barnaamijkii toddobaadlaha ahaa iNews. Toddobaadkan AI iyo su'aalaha shaqooyinka mustaqbalka. Wararka AI ee toddobaadkan waxay sidoo kale dib u soo nooleynayaan dood muhiim ah. AI ma bedeli doonaa shaqooyinka dadka, mise wuxuu abuuri doonaa shaqooyin cusub? Jawaabtu ma ahan mid fudud. AI wuxuu si gaar ah u bedeli karaa shaqooyinka leh hawlo soo noqnoqda sida qoraal diyaarinta, xog gelinta, iyo adeegga macaamiisha, iyo hawlo kale oo lagu qaban karo software. Laakiin taas macnaheedu ma aha in shaqo kasta ay baaba'ayso ama shaqo kasta meesha ay ka baxayso. Waxaa muuqata in shaqaalaha mustaqbalka ahaan doono inay bartaan sida AI loogu isticmaalo shaqadooda. Tusaale ahaan, macallin yaqaana AI wuxuu si dhaqso leh u diyaarin karaa casharro. Ganacsade yaqaana AI wuxuu hagaajin karaa suuqgeyntiisa. Qoraa yaqaana AI wuxuu si dhaqso leh u diyaarin karaa fikrado iyo qoraallo. Qofka ka shaqeeya cyber security-na wuxuu AI u adeegsan karaa si uu si dhaqso leh u ogaado khataraha. Casharka ugu weyn ayaa ah: ha ka baqanin AI oo kaliya, baro sida loo isticmaalo. Qofka AI isticmaala iyo qofka aan isticmaalin mustaqbalka waxaa laga yaabaa inay kala duwanaadaan xagga wax soo saarka iyo fursadaha shaqo. Qodobka labaad, AI-ga oo si xawli ah u gelaya amniga internetka. War kale oo muhiim ah ayaa ah in AI loo adeegsanayo dhinacyada cyber security. Shirkadaha waaweyn ee teknoolojiyadda ayaa horumarinaya habab cusub oo loogu talagalay in kooxaha amniga internetka ay u isticmaalaan AI si ay u ogaadaan meelaha daciifka ah iyo khataraha ka hor inta aysan weeraryahanadu ka faa'iidaysan. Tani waxay muujinaysaa dagaalka internetka uu galay marxalad cusub. Dhinac waxaa jira dadka weerarada internetka sameeya oo isticmaali kara AI. Dhinaca kalena, shirkadaha amniga iyaguna AI u adeegsanaya inay ogaadaan oo ay ka hortagaan weerarada. Sidaas darteed, AI wuxuu noqon karaa qalab difaac iyo qalab weerar iyadoo ku xidhan qofka isticmaalaya. Tani waxay muhiim u tahay in qof kasta oo isticmaala internetka waxayna xasuusinaysaa inaan ilaalino password-ka, xogta gaarka ah iyo akoonnada online-ka. Waxaa kaloo ay dhalinyarada siinaysaa fursad cusub, gaar ahaan qofka doonaya inuu barto cyber security iyo AI. Labadan xirfadood oo la isku daro waxay noqon karaan kuwo aad muhiim ugu ah mustaqbalka dhalinyarada jiilka cusub. Ugu dambayn, waxaan baranay in xirfadaha ugu muhiimsan aysan noqon karin oo keliya inaad AI taqaan, balse ay noqon karto inaad taqaano sida AI loogu isticmaalo xirfadaada, yacni xirfadda adigu aad baratay. Haddii aad rabto inaad mustaqbalka ka faa'iidaysato AI-ga, taladeedu waa inaad bilowdo inaad barato AI tools, AI agent, data analytics, iyo cyber security ama programming. Ha sugin ilaa AI uu noqdo wax caadi ah. Baro maanta si aad uga faa'iidaysato fursadaha beri. Adigu xirfadee ayaad jeclaan lahayd inaad AI ku barato ama aad AI ku dhex isticmaasho? Mahadsanid daawade.